يرفع لنا صورة واحد شركة ما فينا معانا. أنا صورت عادي صورتها. أرى بركن تعطور. adduunyadana la inoo keenin inaan samaan aan sameeyno aan qodayaan iyo xadiid kale aan la nimaadno kaliya waxa la inoo keenay cabsida ilaahay iyo cibaadada rabbi bas waxa ku jirta inaga badbaadadeena ku jirta adduunyadana waxa loogu talagalay diimaha marka ay qoto kala waqtiga oo gaaban awgeed nafteen iyo dadkiina waxa ku dardaarmi alla ka cabsi هذا أقول قولي واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كان أبي ما سيء كان فيلا يا كل ربوك وأشتري هذا الناس ومغلين سماه أبي ما سيء كان في العمر نصيب عن هاي إن درسنا هي استعلنك وركس ما يعني ولد هو كان اسمه من إنستان شركة كان طبعا واستان ترى قال إنه وقت هاي مركز هي استعلنك يوم كفرن نظام كاليدين بشرين ليشان أشوف هذا بالوتري حوال هوستل بالوتري إن سيد ذاك اللغة صار لها حباشة إفتينك حريتنا اللغة صار لها أوكي وحان سويني أمام تسيل أنا أساسني أنا سويني أورك أوي إسيو أيانو كأساسني كيس مايو يانو كأساسني سيدو كله الرجال كانوا هراء يقول سيها سينو جري أوركو يوينك يوركو علمي waxaanu dejinay xeerkii iyo nidaamkii jaaliyadda geeska Afrika ama Kismaayo ay ku dhaqmi lahayd baanu dejinay oo soo saaray runtii waxaa loo baahan yahay maanta marka bari hore hadayna kala dhuumay jiray oo waxa weeye qofka la jiray qofka calaamadii dalwarka waa oo la dhihi jiray maanta ma jirto midii maanta wada aragtaan oo leef caalamka عبدالكريم هالجمع عبدالكريم شيخ موسى إنه هاللو مرتقى هذا هرجيسه والله سعطان قالوا صومر هيا قال قاعد يصومر هيا بنادر بصومر هيا هم كانوا ينوبين مطونا سأقول فوق شوي كسر كلام بحيي لا تيسوا عليه
اوكي وحوي مركا wax aad loogu farxo marka waxaanu idinku doorinaynaa oo idinka codsanaynaa dhamaantiin yaani xubnaha iyo wax oo ruux kasta inuu guddiga nisha maanta halka ku xumaraya meel adag oo maraya haw malaynina yaani intay naruurada helay in la xoroobay haw malaynina kaw ma joogto kaw hawshu ma joogto guddiga nisha la iskaga dhigo hala kayo mid kale waxa iga damay doona insha Allah oo nooga bixi doona hadii Allah idmo waxaan bixin doonaa oo kale iyo halka lagu soo bandhigi doonaa xubno aad u dadaalay mudadii lagu jiray macnaha dadka hoostiisa lagu jiray xubnihii dadaalay ee iyagu diiday inay baqaan intay baqday iyagu sugaan doontaa waa inta shahaadooyinka qaadanin wey shahaadooyin baa lagu bixin doonaa maalinta meesha intii aan yani diiday cabsida ee inay naftooda xataa horaan diyaar ka wahaaba maanta halka lagu siin doonaa shahaadooyin lagu guddoonsiin doonaa باذن الله باري هدي الله يدمو waxyaabo ma kusabirnaa ilaa caawa waxaan maynaa laba saac aan la seen doonaa malayne kowna ma joogto farxaduna aad bay waxa weeyaan dadku yani spirit-koodu iyo dadku waxa weeyaan aad bay macnaha u sarreysaa marka waxaan soo dhaweynayaa oon aad hadda waxaan u soo guddimaha dib ugu celinaya aanoo halka soo dhaweynayo assalaamu calaykum waraxmatullahi muxuu soo dhaweynaa soo dhaweynaa وما سيها يقوليها يحضنها وانطوط دمر إيو الرجمة دي أدوم ما سيها كسر أنا سوون نمت ما تعال سوون نمت هذه أدومها سنتين سوون بضم إن شاء الله أنا أجيبتين أبغى أجيبتين عدسي جارية أها بالمانطة إنا ينقو كلامنا كسماي أو مرشقة xubnihii in la isbarto inaan waxaan ku wuri jawgii hore aynu ku jiray inaynu ka guuro jawi cusub aynu guuray inaan bulshada la dareensiiyo abaabul kale fara badan iyo madaxdii oo dhan baa fadhida oo insha Allah wixii barnaamijka dambe inoo soo qaadaa dhigi doonta waxaan rabaa inaan hal qodob ka hadlo halkaan qodob wuxuu yahay dhaqaalaha dhaqaalaha waxaan wada ogsoonahay halgamaaga qoriga wada ee booshka dhexda kaga xidhan yahay markii laga tago qodobka ugu muhiimsan ee xubnuhu ay qaataan waa dhaqaalaha haddii la waayana halgamaagu qoriga iyo booshka ma sidaayo halgankuna ma soconayo diinta islaamkana waad ogtihiin inta badan waxaa la hormariyaa markii jihaad la sheegayo waxaa la hormariyaa dhaqaalaha la'aantiina waxba ma dhaqaaqo marka qofka dhaqaalaha raba bal wax yar inaan yar ifiyo ta koobaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xubnihii qaaliga ahaa kismaayo inta badan usoo dhabar adeegayay godka hoostiisa iyo waxaan ku uri xaafadaha waxaan ku uri isku qarinaya ee inta halganka taageeraya ee dhaqaalaha bixinayay aad iyo aad u mahadsan yihiin inta ka bacdi xubnaha walaalkeen haddaan in yar kaga yar noqdo walaalkeen Bashiir insha Allah shahaada sharaftu waxay ku saabsan tahay dhammaantiin inta waa wada dadaalay qof aan dadaalin nin walba taagtiisa waynu dadaalay xagga dhaqaalaha iyo xagga abaabulka iyo xagga halgankaba waxa la guddoonsiinayaa waxaa weeye xubnihii group walba wuxuu iska lahaa horjooge yacni groupkii horjoogihiisa la abaal mariyo waxay ka dhigan tahay groupka dhan waa guuleystay ha u arkina marka qof haddii la guddoonsiiyo shahaadada qofkii aan la guddoonsiinin inuu isagu uunan halganka ka qayb qaadan laakiinse jaranjaro dee wax walba leeyahay hoggaanka horjoogihii hadduu dadaalo oo uu bulshada ka dhex muuqdo hadda dadkii uu markaa loo dirayna way dad fiican bay noqonayaan taa haddaan intaa kaga gudbo dhaqaalaha waad ogtihiin waa lafdhabarteenna waa lafdhabarta koowaad aynu ku dhaqdhaqaaqayneen halgankeenna iyo calankeenna iyo midnimadeenna iyo ummadeennu ay ku dhaqdhaqaaqayso wey midnimo mintid isku tashi marka dhaqaaluhu waa lagaba maarmaan dhaqaalaha waxaynu ognahay dad agoona hooyooyin agoon haysta waxaan kuli gudihii laga jiro meelo fara badan laga jiro inay haddana iyagoon ognahay duruufta ay ku sugan yihiin $5 ee bisha qaaraan bileedka inaynu ku baaqanin
وأرين إلهي لوجا مهندقه أيقول أيكون هالسيهين هالجن كان له إن طبر أضيق قفكوا هدو منه هالجن كا إنه وعن قولي هالجن كا إنه قلنا صف شيء جنا يهدي وآمنه يعني هي مدفع تقارب بحن مدفع لكن سأديك قلنا صف شيء جنا يهالجن كي ودبعتها يرفعت كل وسوقي هاي وأديكي أو شقيستا حبن أطار سنة هدي $50 لجاوايو وهذانا أظن الصف شيئاً يسوى هلكن كإنتاس أو مدة أن أرجني السعودي $5 بقصة قرمدية إن صامرة يسنة تيبا هذين محالات دقيقة إيمانين سنة تيبا هالمربوط قرمدية صامرة $5 بيش الله بحنا أيو هدي لقيبي واسنتي أدو يرويون كيف waxaan bulshada ka codsanayaa way dadaaleen intii hore inaynan hadda inta isdhahaan xornimo la helay iyo wadankii waa free inaan la gaabinin halkii laga sii amba qaado la sii xoojiyo kor la isku sii qaado maanta xaaladii ugu khatarsaneyd baan ku jiraa ugu badnayd halkan ugu khatarta badnaa ummadii baa isdhex boodday free baa tihiin baa la yidhi xubnihii ka tagayay wadamada iyo gobolada iyo adduunka meel walba ka tagayay kharash bay ku socdaan ma aha nin walba inuu jeebkiisa dad wada qaxooti oo iskool daayo oo la yiraahdo gurihii aad dhaqaalaan ma dhaqaaqayo halkan kuna ma soconayo nimankaasi waxa ay u socdaan ay duurka u galeen ay meel walba u socdaan kii abaabul wada iyo kii qori wada waa inaga dhaqaalaha inaga jeebadeena lagu socdaa إلهي ما مهد إسكاله إلهي ما مهد إسكاله حفلة درمان تاجن لحي وحاي وحشتي وقتي من السناوي حفلة النور دقيقة كفر حين في حد سعيد دقيقة لي ألف لي حلو دقيقة مركان قلبي إلهي برطع وما ترى عدو أساستان مركان عدو ترى أنا عندي شوفيا بقتي عابقها مركان هاي يحصل waayahay taa maxay igu xigtay waxa igu xigtay jiko inaan ku gabiyo jiko xaasle oromada saad ogtay runtii waa qoys aad u jilicsan weeyaan oo aad u jilicsan uma daahayaan hadday saddex isu raacaan marka waxay oroma ku qasban tahay marka inay hoos ina soo gashaan oo Soomaalida ay ka dayaan hadii la heen taas ay ugu qasban tahay hadday wax garanayaan weey marka Itoobiya saas waa arrin marka hadii inaynu ka gaasho ama loo baahan yahay kan waxa inuu leh inuu wada Kenya inuu wada Kenya inuu yahay inuu noqday sama may shir baad awar inuu noqday inaan wada Kenya inaan dad tusno inaan ilaahay joogno inaan tacsamo waa mid loo baahan yahay hadalkiisa ila raacma أنا وحنا جينا إرجع ونحكي كمان بسوالف السؤال وحنا لا دقدق وعمل شيطان ودكين وين محرومين واسعاقهم كوجته إن شاء الله محرومين دورا هديلا نجانا ودك هديلا بريها يا لسجن وطن يا لسجن هلا شو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.